بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام الأمان ولا لها صوماليات ميل والبود كلا جوكتين دنيا دافع هذا وقت إيوايهني وعنا إن شاء الله تعالى أمني أمام كنا لا صومالي ويني ولكن حسن عبد الله أبو سلمان وإذن لمرلوادي مرسد عادبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وعاف ما تقوى مضح وأسك صحيري وأسك صحيري إبرانك صحيري نمبر لما اسك soo wada galiyay xalay waatii aan xanuunsan aan clip idin soo duubay aan kaga hadlayay nimanka qareenka isku sheegay ama qareemada midowga qareemada qurba joogta Soomaaliyeed isku sheegay ee ah qaran dumiska iyo boqonagooska ummadda Soomaaliyeed waxay wax u soo barteenbo inay calooshooda weyn waxay geliyaan haday ka heli waayeen Soomaaliya ee cadow ku noqdaan meeshan dawlad nabad iyo nolol la joogta oo joogi doonto afar حتى الموت وجوgi doona madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xafidahullahu tacaala marka idinka meeshiina iyo calooshiina weyn ku haysta qod muutu biqaadikum idin leenahay caradiina ku dhinta idinkoo meeshiina jooga waa dadka hadda dhahay dawladda Soomaaliya dacweynayna aan ku dacweynayna maxkamadda adduunka oo bal maxaa ka dacweynaysaa adaaba dacweysan oo diifsan oo dugaagsan maxaa dacweysaa dawladdan waa dawladda shacabka waa dawladda shacabkeeda jecelyihiin saqiir iyo kabiir jecel cad iyo madow jecel jareer iyo jilaac degan waqooyi iyo koonfur degan galbeed iyo bari jecel kulli wasadka jecel maxaa dacweynaysaa maxaa dacweyn kartaa baxorta inta masquush gishid isnadiifi marka isnadiifisid maaragti oo soo cadaysatid oo muraayada isku fiirsid oo aleele ummad hor istaagi kartaa tiraad markaas inta dadka soo hor istaagtid leh waxbaan dacweynayaa محمد عبد الله محمد فرماج حفظه الله تعالى دولديس الله حفظه الله نذيفي الله حقي سكسو الظاهري الله أصو دوري أمدها مساكينتا صدن كسنتيه يطلعوا ماذا هيسي مركا وحبان دعويني مركا ليلايا او في او اي انت سو استاكتد وانينك لليا مجي عيسى ما اقان ميش انا كو قرناي وحلا برطما اهي ninka la leeyahay Yuusuf Cabdi Fataax oo leeyahay Soomaaliya dawladdan dacweynayna bal ya niyo subhanallah warniyo waxa la yiraahdaa hadii aan lagu sheegin waa la sheegaa liirkoode oo adiga cid ku sheegto markaa isma sheego saamana waxa tahay in aad tahay yani gudoomiyaha duliyaasha ma tahay inta dulaysan ee dalkooda duulaanka ku ah ee dalkooda inay dumiyaan raba ayaan gudoomiyo ayna laho meeshaas la soo istaan weliga ma aragteen war dalkan dada iskale Soomaaliya iskale Soomaali baa leh waxaan hogaaminayaa Soomaaliya nadiif oo xalaal ah marka waxa dacweyn kartid malaha abti awal adiga isa soo eeg marka isfiirsid oo adiga aad isku qanacdid markaas ummadda soo hor istaag laakiin ummadan 20 milyan ee jamhuuriyadda xorta ku nool ee malaayiinta kale ee ku nool Soomaali galbeed iyo Soomaali NFD iyo Djibouti abti hal dhigay lahaayeen dhigtiin waxay ku maqleen hadalka farmaajo xafidahullahu tacaala hal ilaa lahaayeen ishin waxay ku arkeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ugu hingaadi ama meesha farta ugu fiiqo ayaan cadow u arkaan idinkan cadowni arkeenaa kuwa niila midka cadow arkeenaa maxaa dacweyn kartiin يعني ساس ده والغوص أخرى مية معناه أنا قاعد مسترنا أديك ساس نو ده مية معناه ولقي سالقو يقان جاجوس إيش شيء وشقين إيش شيء دبر نلف ونقو إيكواقات شيء ولقي سالقو قا إيه ده أديك إيه ده أنا قاعد مسترنا والقاعد نحجوح ويا وفهمنا هذاك جميستا كان نحجوحايا صومالي نعبة كان نحجوحايا Soomaali inay dawlad noqoto diida ka dhaxguuxaya Soomaali naceeba ka dhaxguuxaya Soomaali inuu dib u celiyo 60 sano la soo dhaafay ayaa ka dhaxguuxaya laakiin Soomaali cilmiga loo soo bartay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xafidahullah iyo tiimka la shaqeeyay dawladdiisa ka tirsan sida wasiirkeena maaliyadda Mr Beyle wasiirka qorsheynta Mr Jamaal رئيس الوزراء كحجين كان مادي قولت خضر
haddii allaba kuu roon yahay rag aan macnaha kala dhicin ciidama hadday noqoto sida walaalkeen odobaa yuusuf raage farxan qaroole ilaaha wada xafido kulligooda master xijaar oo gaamuray oo khabiir ah taliyaha ciidamada nabad sugidday hore ilaahay xafido cadowgiisa allah qabto master fahad yaasiin xaaji daahir war lama kala dhacan ku dhahay guddoomiye aan hadlin ee hadduu hadlan hadalkiis ka run sheego master cumar maxamuud maxamed cumar finish xabiibi la taliyaal hadday noqon lahayd dowladda oo nabad inool hadday noqon lahayd madaxdeeda ciidamadeeda la taliyaasheeda saraakiisheeda amnigeeda wasiiradeeda wasiir u dowlayaasheeda kulli waa dad active ee xabiibi oo rabbi subxaanahu wa tacaala fooqa 7 samaawaad nooga soo xukmiyo nagu abaalmariyey markaan sabarnay maxaa yeele alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fa in tasbiruu wa tattaquu laa yaduru kayduhum shay'a haddii aad sabartaan oo aad cabsataan magartoodii akrigooda waxba niigama dhimaayo ama nii dhimi maayo yacni 30 sanaan sabraynay hogaamiye kooxeed qabqable dagaal jinni qashin qabiil jabhad la kala googooyo waddanka dhiigga dadkoo la cabo faleebooyin lagu surto umala doox wax walba shib yaa rabbi حبيبي رسولك وحير الدعاء المظلوم مستجابة الدعاء المظلوم مستجابة سانا لين صدن صندان شعب الصومال لا ينصرنك ولو بعد الحين ربي حديث القدسي وكير وأكو قرقار يا مظلومه ولو بعد الحين وقت بهاك سوريته 30 سنة سان لهن إلى ودن كينا توس إلى كوبا حنا قبو إلى كوبا أديك أكتاي وخير قبو نوغو ديب تنزل بدنه 3 سنة الله حفظه محمد عبد الله محمد فرماجة حفظه الله تعالى الله يطول عمره الله يخليه إن شاء الله تعالى الله يطول عمره أيان الله كان هاي أبالكينا كان هكذا قليل مركز حجابك قاعدتين قبليني ودين تبرتين ود اتوقتين وقص صبرتين كان أبالكينا كده السجن وحصو حشتي midba midkuu ka sii wanaagsan yahay marka sidaa daraaddeed saaxib waxaad dacweyn kartid male labo ariyo meel isku dagaashana ma dacweyn kartiin waxaa yeelay meeshiina dhaxantiina maaragtay iyo barafkiina tartiib kuleelasidiina iskaga jira waxaa cuni kartiina gaaladaas ka luflufta ee meeshiina ku cuna meeshaan shacabku wuu soo jeedaa dhagoodan way taagan yihiin laba anteenoo la dhoo farmaajo iyo fahda ku kala suran labada indhana waa kana saana yihiin farmaajo iyo fahda ku kala suran marka cagaha dhulka dhigto baarlamaan aan ku dhaarno xalaal ana waa heesana oo gudoomiye u yahay gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa mister muudey xafidahum allahu tacaala waa dheragsannahay dowladnimadeedan taam saddexdii adood iskuma qasna tii sharci dejinta tii maxaa la dhahaa fulinta iyo tii garsoorka maqsuud ayaan ahay haddaan u nahay shacabka soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan dhaho tanasul badanow tala toosanow mudana madaxweyne ilaahay ha ku xafido ilaahay ha ku barakeeyo wax badanaa tanasushay laakiin maanta waxaan ku leeyahay dowladnimadii adiga iyo tiimkaaga ku soo jilba muraxdeen oo aad meelba meel ka keenteen waa u jeednaa in hagardaamo lala rabo in lugaha la qabanayo waa u jeednaa in qas iyo foodo la rabo waa u jeednaa in macnaha waa ognahay inuusan macnaha 30 milyan leh inuusan waxba ahayn waa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ogyahay shacabka Soomaaliyeedna way ogyihiin isagana waa ogyahay inuusan wasiir ahayn laakiin waxa waaye colka waraf ma lagu dayay يعني تبارك لما تعالى مركي لبايا ورف كاله ولا يجي موتاي والله طورة علك شيء كذا علك ورف من الجودية تاجن تاعي
marka anaga wasiir amni waa leenahay kiin oo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo og yahay waaye taliyaha kan oo noo magacaabay baa nabad sugidda waa leenahay la taliyaha madaxweynaha dhinaca amniga kullu shay full aan u leenahay waana kuwa uu ogol yahay oo raaliga ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xafidahu allahu tacaala waabada ogolnahay iskuma diidan marka dadka inay wax qasaan raba anaga waxaan leenahay dad kale waxba nagama gelin waxaan fariinteena toos ugu wadnaa inkastoo dhagihiisa aysan gelaynin aysan u daloolin ra'iisul wasaaraheena allah noo soo hanuuniyo allah noo toosiyo tubta toosan allah tuso xaqa allah tuso soomaalinimada allah tuso mudane maxamed xuseen rooble waxaanu ku leenahay walaalkay qaaliya كل ابن آدم قطع وخير القطاعين توابون بالآدم كدن wuu gafaa waxaas ugu khayr badan kuwa gafkooda ka soo noqdee walaalo wili soo dhawow aan ku leenahay saacbo furan ku soo dhawow laakiin ugu mar walbo istiraad wax samee ee ku xumee madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xafidullahu tacaala maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo 20 milyan Soomaali 20 nasma Soomaaliyiin oo mas'uulka qalbigooda u hantay mar alla markaa wax ka hale asaga isleedahay adaa god ku sii dhacaya isaga maaha maxaa yeelay anaga shalay saanoo ahayd imaanta saanoo tahay kaaf i kala dheeri waaye weli rajaanu kaa qabnaa laakiin laa taqnituu min raxmatillaah naxariista ilaahay ka quusanaa liyir kaama quusanayno weli waxaan ku leenahay noo soo noqo weli waa ku rabnaa aan ku leenahay sida madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu ku leeyahay ila fariiso iliishiyo kaalay ayaan weli ku leenahay kaalayo soo noqo oo noo noqo ra'iisul wasaarihii aan rabnay ra'iisul wasaarihii qalbigeena rabi ra'iisul wasaarihii oo noo soo xulay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xafidahu allahu tacaala noo noqo ayaan weli ku leenahay haddii aad maqashidna shacabka hadalkooda ama baaqyada shacabka haddaa maqashidna falilaahi alxamdu haddii aad maqli diidana hadda dhib aad adiga qaban shacbu soomaali ma qabaan ra'iiskoodana ma qabaan maxamed cabdullaahi farmaajo xafidahu allahu tacaala marka rabbi waxaan weydiisanaynaa samaa'u dunya iyo jooga rabbi subxaanahu wa tacaala inta badan cajalooyinka waxaan soo duwaa ama kiliibyada habeen barka ama habeenka qaybta dambe oo ummadaha salaatuleelka ay u taagan yihiin rabbi samaa'u dunya ayuu yimaadaa wuxuu yidhaahdaa yaa ibaryaaya yaa owlaaddoon oo owlaad siyaa owlaad i weydiisanaya yaa maal rabo maal i weydiisanaya xalaaloon siiyaa yaa guurdoon oo guur i weydiisanayon siiyaa yaa madax daacad e rabo ituugo madax fiican aan siiyaa yaa madax dhibtay oon ka bedelaa oo ituugo i weydiisa in aan ka bedelo wax walba rabbi agtiisa maftuuxa subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu ka xishoodaa gacmo saas yiri inuu eber soo celiya inuu ka xishooda subxaanahu wa tacaala marka weli waa ku jecelnahay ninyow walaalkeenow hogaamiyeenow ra'iisul wasaareheenow weli waa ku jecelnahay gacmaha yaanan taagin hanugu kalifin gacmaha inaan taagno wallaahi 20 milyan oo Soomaaliya milyan ka mid ah gacmaha kor ugu taagan rabbi subxaanahu wa tacaala wallaahi daqiiqad wax ka yaraa ku bixisa adoo foolxum badan laakiin anagaa ku jecel madaxweynena noo kaa keenay waa lagu qalday dadaa ku qalday waa ognahay adiga ma aha wax kale kaa dhex guuxaayo waxaasoo dhan waa la soconaa caruur manihi waqti badanaan dunida soo joognay laakiin waxaan ku leenahay noo soo noqo anagaa ku rabno oo ku jecel rabbina waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala haddii soo noqoshadaada khayr noogu jiro oo rabbi uu ogyahay inaad noo soo noqonayso ilaah noo kaa soo celiyo haddii aysan rabbi uu ogyahay inaad noo soo noqonaynin oo soo noqoshadaada khayr ee noogu jirinna rabbi subxaanahu wa tacaala si aan dhib lahayn oo isjiijiid lahayn oo buuq lahayn Soomaali maanta teeda haysato anagaa dhibaataysan anagaa 30 sano rafaad ku soo jirnay ilaahay si dhib yar oo aayara hanooga kaa siiyo sidii tan cajiin laga sii waayo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga kaa siiyo ana waa ku rabnaa laakiin ana uriidu inta turiidu والله يفعل ما يريد واي مرك أنا وحمان ربا أنا شعب كنا وحان ربنا
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maxbuu kula rabaa laakiin tan rabbi ayaa ahaanaysa marka waxaan ku leenahay ra'iisul wasaare inaad noo soo noqotid aan noo qayr badan oonu jecelnahay rabbina aan ka baryanaa haddii aad diidid somaa waddankan wuu jiraa doorashadan way soconay waddankan insha allahu tacaala rabbi waxaan ka baryanaa in qof hagardaameeyaba uusan helin uusan u gacan gelin qof walbana asaga oo meeshiisa jilbaha dhulka ugu goosto taas markaan uga baxtan ra'iisul wasaaraha iyo arrinta khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinka badda soomaali weyne meel walba dad kala joogtaan dunida daafeed waxaan idin leeyahay mabruuq 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 alfa mabruuq horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa intii ka shaqaysay intii dacwada gudbisay intii ogolaatay intii dhiirigelisay intii ku adkaystay inaan laga soo celinin badda iyo intii dadaal muujisay ilaahu hal kelmad allah ka dhigo ugu horeyso walaasheen fawziya xaaji aadan wasiir arrimo dibadeedkii hore ahaydna ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha iyadaa dacwada badda geysay iyadaa soo fagtay iyadaa keentay muuna sharmaan iyadaa keentay raggii ragga ahaa iyadaa waxaan boorka ka jaftay iyadaa noo keentay waxaana ku raacay madaxweynaheenii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud jazaaka allahu alfa khayr ilaahay taas abaalkeeda kaama habaabiyo iyo ajarkeeda iyo xasanaadkeeda isagaa ku ayiday oo ogolaaday in la geeyo walow dhowr jeer uu diiday sida fawsiya afkeeda ka sheegtay laakiin akhiiran wuu ogolaaday madaxweynaha xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore wuuna geeyey inti kaloo u guntatay allah u naxariisto walaalkeenii badiiqaanka mar dhow dhintay فردوس الله الله كورابي دنبجيس الله داف قبرجيس الله واسعي كتاب كسميدك الله كسيو قبرج الله وعرفيه الله ونوري الله واسعيه إن شاء الله تعالى عذاب القبر إلى وكبد بادية وإلى 20 مليون أيوب بادية إن شاء الله تعالى وحول رجينا خير هناك رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه رح جيفه أو روضة من رياض الجنة أي أنقط قبرنا أرجينا ربي سبحانه وتعالى أو قبرنا ولا الكين أنت كجلال بدان إن شاء الله صوماليا لو حكمنا وأنا لو حكمي به لكن وحا إذن لا يهي صوماليا يهرداي قبل فنان حتى لو أفريقيا يهردوي أفريقيا يهردوي ما صوماليا يهردوي واي عدو كهل يهردوي هل يدا يهردوي هاد باعنا يهردوي وصومالي ما أفريقيا واي أفريقيا نول بكستي قميسي ودي ويحرمها ذيك بعد وكل جاي لكن dadka 20 jeer iscunaya isliqay isxaaray hadana isku soo noqday raqdi ku soo noqday waa Soomaaliya oo la fi iska kala feentay ilaahay hawlaalay Soomaali ilaahay isjeclaysiyo ilaahay mid ka dhigo ilaahay faraanta ka dhigo marka dacwadan badda waa ku guuleysanay insha Allah waxaan kala meeshan ugu mahad celinaa kun jeer ee ka badan maxaa yeelay ma la yashkuru naas la yashkuru Allah dawladaha aan saaxiibka iyo walaalaha nahay ee mar walba garab taagan ay ugu horeeyaan dawladda Turkiga iyo dawladda Qatar gaar ahaan dawladda Turkiga oo si cad ugu sheegtay Kenya dhagiheedana ugu shubtay Uhuru Kenyatta Uhuru Muigai Kenyatta kukuyaha dhagiisa ugu shubtay tiri haddii warqadda maxkamadda la keeno loo soo xukmiyo Soomaaliya أنا دفاعي سيدي أذربيجان ودفاعي أذربيجان أو دفاعي وأنا لأوكي تركيا هدوه هطلع هذا الكيس وهذا وإحنا سكر صار ماله سيدي تهو أفولي بلانت مركي إلهي وحن كبرينا إنسان تركي كان وح أقول لا وعملنا أقول لمنين نمنك أندرس كنا سواحلي يا رب قرطي إن أندرس نقولنا وح أقول لمنه أقول لا وعمل صو حكميه إن دهان خلاص وأكبحنا ماشي وحين قات ووحين سلاس نوغو سوعليان marka baddaas loo duceeyo Soomaali weynay meel walba kala joogteen dunida daafeeda nin kasto qofka ducadiisa laga aqbalaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya garanaya ducada aan badino wallahi ducada waa gantaalka amaanta adeegsanayno bismillah
ducada waa gantaalka amaanta adeegsanayno waxaan idin leeyahay ducada aan badino kan aan jecelnahay aan u duceyno ilaahay inuu ayido kan aan necebnahay aan habaarno ilaahay inuu naga hor dhaqaajiyo kan na dhibo aan habaarno kan xoolaheena nagu haysto badan nagu haysto aan habaarno kuwa noo soo dhicinaya aan u duceyno mar walba ducada ha naaqusinin walaalayaal ducada waa shayga kaliya oo qadarta bedesha subxaanahu wa tacaala qadarta allah qoro waxaa bedesha ducada maxaa yeelay hadda kora waxaa la yidhi nin ayaa maalqabeen ahaa marka waxaa timaaday waqtigiisa soo dhawaaday marka dadkii hore waa sheeka xikma yani ma aha wax oo xadiis iyo waxaas laakiin waa sheeka xikmad ah marka waxaa la yidhi ninkii waxaa la yidhi ninyo waxaa kaaga dhiman geeridaada toddobaad ama isbuuc ama hal yani isbuuca kaaga dhiman saas miya uu yidhahaa wixii xoolo oo hayo dhan woo sadaqeeyey maalmahan waa isii gurayan ogow maalinta ugu dambeysay labadii goocaad caddaa oo lagu kafin doono reebtay 2 dirham u soo hirtay 2 dirham oo waqtigiina sakinaa ka dhiman oo asaga dhiman lahaa 2 dirham oo naag cajuusi ku sadaqaysta markaas naagtii waxay tiri ilaahay waxaan kaaga toogay cimri dheer oo cibaado leh caafimaad Allah ku siiyo samadaa furneed isla markii automatic waa la aqbalay qadarta xagga maxaa ku qorneed inuu daqiiqada ka bacdi dhiman doono ducadana awoodii macnaha markii samada ee furneed oo saacatul ijaaba duqdi ee u duceysay awoodii ee lahayd ducadii ayaa ala tul samada aaday automatic u bedeshay cimri dheer iyo cibaado iyo caafimaad ninkan muxuu ku talagalay saacada soo socdo inuu hadaafi doono ma hadaafin ma uusan dhiman wayaabi wixii way joogan marka kole qisada sidii ee xaqiiqdeeda ee Allah subhanahu wa ta'ala naga garnaaya ma nabigiyo u tagay mis qofkii u sheegay mis haatufkii alla soo hadlay adiga markii dambe khabaroo doontay marka wuxuu yiri aniga dhimashadeed waaba la mooday maxaa dhacay waay waxa la yiri adiga markii ugu dambeysay meeqa gacantaada ku hartay wuxuu 2 dirham say yeeshay islaanan siiyo yiro sadaqo sii islaantaas waxay kugu duceysay aliyir cimri dheer iyo cibaado caafimaad ilaahay ku siiyo samada furnaad saacatul ijaaba ee waa loo aqbalay saasa cimriga lagu dheeray cibaadana lagu sii caafimaad laakiin maalka dhan waa laga qaaday marka ducada waxay bedeshaa qadarta marka Soomaaliya aan duceeno dhulum kuma duceeyno qof walaalo dhulum kuma ayideeno qof walaalo dhulum kuma habaareeno laakiin ducada waa maqbuul ilaahay waa aqbala aan duceeno kii wanaag Soomaali wadana aan u duceeno kii xumaan Soomaali wadana aan habaarno waa shay aad u fiican arintan murjisay ee hadda ilaahay biyo qabab ku shuuyo damay ee walaashan ikraam tahliil faarax waa loo duceey ilaahay waxaan kala saaraa liir subhanahu wa ta'ala waa la weydiistay waa la kurbooday Soomaali way kurbootay qaranimadii qalqal gashay arinta ilaahay hadda biyo qabab ku shuuyo subhanahu wa ta'ala anagoo rabna inay cadaalad hesho waxay hesho sida gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed dhan kala dhan aan rabna inay cadaalad u helaan oo anaga rabna inay cadaalad u helno ayaa iyadan rabna inay cadaalad u hesho maca dhalika waa la duceey arinta ilaahay biyo qabab ku shuuyo subhanahu wa ta'ala bal shuf marka walaalayaal waa walaalkin Xasan Cabdalla Abu Salmaan oo idin la sumadii awoow Sinji waa maguuraan ciidan ugu cusub walaalayaal oo subscribe-ka noogu dadaala like iyo share-ta iyo hadii Facebook ka fiirsataan en follow-ga intaasoo dhan lacag ma iskaga jiida en anaga xasdina waa walaalkin Xasan Cabdalla Abu Salmaan oo idin la sumadii awoow Sinji waa maguuraan Soomaaliyeed meel walba dadka joogtaan dunida daafeed waqtigii waayaani wacnaado cidda maalin u tahay maalin wanaagsan cidda wanaagsan wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.